Gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa waxaa gilgilay faldambiyeed argagax badan oo ay ku nafweyday haweeney 46 jir ah. Qofka la tuhunsan yahay waa nin da'diisu tahay 38 jir. Sababta dilka ayaa loo aaneynayaa inuu yahay maseer ku kalifay inuu dilo oo maskaxdeeda cuno qayb ka mid ah wadnaheeda iyo labadeeda sanbabood. Ciidamada ammaanka ayaa waxa ay tuhunsan yihiin Joseph Obrahensley oo dilay saaxiibtiisa si uu uga argoosto. Waxa uu cunay maskaxdeeda markii uu madaxa miinshaar uga dhuftay. Waxa uu sidoo kale uu cunay qayb ka mid ah wadnaheeda iyo sanbabaheeda. Warbaahinta ayaa sheegtay in ninka la tuhunsan yahay Obrahensley oo ay booliska ku tilmaamayaan inuu yahay dilaa dad cun ah iyadoo ay jirto inuu dambiga qirtay bilowgii hore ayaa haddana uu dib uga laabtay uu inkiray wax walba uu horay u qirtay. Hadda waxa uu ku andacoonayaa inuu dambi la'aan yahay. Booliska ayaa sheegaya in ninkan dad cunka ah oo markii hore qirtay dambigiisa iyadoo waxyaabihii uu qirtay ay ka mid ahaayeen inuu cunay qayb ka mid ah maskaxdeeda. Iyadoo ay arrintaasi jirto ayuu haddana gadaalka inkiray wax walba uu sheegay in wax lagu haysta ay yihiin waxba kama jiraan. Waxa uu ku adkaysanayaa inuu dambi la'aan yahay waa sida ay sheegtay jariirada Daily Mail. Obrahensley waxa uu sheeganayaa inuu saaxiibtiisii hore ee Planto ay ahayd haweeney daroogada isticmaasha. Waxa uuna ka qoray doqonnimo fara badan oo uu ka sheegay. Baaritaankii faldambiyeedkan wali waa u socdaa si loo helo faahfaahinta iyo sababihii ka dambeeyay.